Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kusoo dhawaada idaacaantii channelka iftiinka period. Maanta fiidiyogeena waa mid aad u xiiso badan, laakiin Ramadaan mubaarak idil ahaantiinba meel walba joogtaan. Maanta fiidiyogan waxaan kusoo qaadan doonaa dalka Croatia. Inoo bilaaba fiidiyogeena maanta wuxuu ku saabsan yahay gargaar info. Waa wadayskiisa bartamaha iyo koonfurta Yurub, badda Adriatic. magaalada Zagreb waa mid ka mid ah qaybaha hoose ee dalka oo ay weheliso 20 gobol. Croatia waxay leedahay aag 56,594 kiiloomitir oo isku wareeg ah, 22,851 mayl oo laba jibaaran, iyo dad gaaraya 4 milyan, kuwaasoo intooda badan yihiin Romantic Catholics. Croatia ayaa soo gaadhay aagga qarnigii 6aad, waxaanay dhul beereedka u abaabuleen laba dujiis qarnigii 9aad. Timislav wuxuu noqday boqorka ugu horreeyay 925 oo kor u qaaday Croatia si ay u aqoonsato boqortooyadii, taasoo haysatay awooddeeda ku dhoweyd 2 qarniyood, iyagoo gaadhay heerkii ugu sarreeyay ee boqoradii Peter iyo Dimitri Sever. Croatia waxa ay ku biirtay urur shakhsiyaad Hungary sanadkii 1102 ilaa 1527 ayaa la kulantay qabashadii Ottoman. Baarlamaanka Croatia ayaa u doortay Ferdinand Habsburg in ay carshigii Croatia bishii Oktoobar 1918. Maalmaha ugu dambeeyay ee dagaalkii dunida, State of Slovenes, Croatians iyo Serbs oo madax bannaan ku ahaa Austria-Hungary ayaa lagu dhawaaqay Zagreb bishii Diseembar 1918. waxaa lagu biiriyay boqortooyada Serbs, Croatians iyo Slovenes kadib dagaalkii Axis ah ee Yugoslavia bishii Abriil 1941. badii dhulka Croatia waxaa lagu macaamiisha taageera Nazi oo taageera dhaqdhaqaaqa iyo sacaabinta iyo abuurista dowladda federaalka ee Croatia kadib markii dagaalku noqon aasaas xubin ka ahaasha federaalka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Yugoslavia. 15 Juunyo 1991 Croatia waxay ku dhawaaqday xornimadeeda, taasoo gebi ahaanba dhaqan gelisay 8 Oktoobar ee isla sanadkan. Dagaalkii Croatia ee madax bannaanida ayaa si guul ah ugu dagaalamay 4 sano kadib markii lagu dhawaaqay. Waaniga qoyska la socodsiinaya barnaamijkeena maanta, sida iyo fi amaan ilaahi xifdi.